nolosha iyo hadafkeeda. Why we are living, maxaynu u noolay? What is the purpose of life? nolosha tan maxay tahay? danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay? Rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysano fawska. ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي قرآن كوحولي نف ولبوي جيريونسا نلشو تنلشوغا وحسيس عنا يماها مهما كان لديك من مال وسلطة ونعمة ويتقي سبالين wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa, waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay. wainnamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama, waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha. adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin, waa lagu dhadhansiiyey, wax weyn maaha. laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay, insaanku ra'su maalihi waa sanawaadkuu nool yahay. wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinaya, lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala yowma alqiyaama. sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay, faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz. ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa, kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan. markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur. nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu bedhbidhsado mooyaane. yacni nolosha adduunyo waa mataac, laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur, ku la kadiyey, ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan naf mooda. walidaalika ayuha alikhwa, kow markaynu wax qiimaynayno waxaynu leenahay the whole life aan eegno, noloshoo dhan. adduunku waa qayb yaroo ka mida noloshaada. maraaxil bay noloshaadu maraysaa. maraad caloosha hooyadaa ku jirtay, maraad yareedoo soo koraysay, maraad geeriyootay, maraad xabaal ku jirto, mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo, iyo daa'in halkay ku gebagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso. ma jannaad aadaysaa mise naar baad aadaysaa? waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa. qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan, waa mowducu ibtilaa. wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su'aal jawaabteeda la sugayo waxaad ku qorto whatsoever. haddaad caafimaad qabto waa su'aal, haddaad xanuunsanayso waa su'aal, haddaad xoola haysato waa su'aal, haddaad faqri ku jirto waa su'aal. whatsoever, wax kasta oo nolosha kula kulma waa beyj nolosha ka mid ah, laakiin ah imtixaan xagga rabbi ka yimid oo la eegaya waxaad kaga jawaabto. mid walibana jawaab bay leedahay, mid walibana jawaab bay leedahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahy tabaaraka aladii biyadihi almulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaa laynoo tilmaamay geerida iyo nolosha iyo waxaanoo dhammi macnaha quree looga dan leeyay inuu tahay liyabluwakum ayukum axsanu camala, in laydin tajribeeyo, laydin itixaamo. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala war adduunku innaa jacalnaa maa cala aradi ziinatan laha. dhulka waxa kor saaran oo dhan waa qurxun baan dhulka uga dhigay baa ilaahay leeyahy. oo maxaa looga dhigay? linabluwahum ayuhum axsanu camala, inaan dadka itixaamo kooda camal fiican baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. marka ilaahay wuxuu leeyahy nolosha gebigeedba waxaan idin keenay in laydin itixaamo. the purpose of life waa intaa. waxa lagugu itixaamayaana waa maxay? ee ugu horeeya waa takaaliif ilxayaa.
وعبادة وقهر الرئيسة وهي إنسانكم بفطرته بين هذا أي عابدين لكن وحلوه يتحامى لمن توجه العبادة إليه عبادة يا ضغي من يسا إلهنا القرآن كوحكوت المامية تتكبر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ما ركتا كور رمبان رب إليه كون إله هذا كردكتي وحي عابده يا وحي نفته دونته نفتيس وحي أي دونته كستو كردكت أيها الإخوة مركا وحي لهنا نولشان إنو جوجنا يدو قول كلام ماله نولشان إنو جوجنا وامتحان امتحان كاسنا جوابتي سر رسمي أدونك بعضا منها إن لقوه رمرية ولا غيابا نوع من العقابات إليك وقلنا عواصر تقل نوع من النعمة إن تشواصر تقل لكن وبيت اوف ات معها جوابتي الرسمي وإنما توفون بالليل أجوركم يوم القيامة وحبال لقاسي يدوني دا انت تشوكتي بوزيتيف يا نيجاتيف كو دونا بها هذا لكن يدو الرسمية واحد جوابته ليس بالليل محي يوم القيامة ولذلك مقياس كو وحينو لين يقوش الرسمي قاهي ما ها هبل با لعك علي ما ها هبل با عرور بدن علي ما ها هبل با مدحوينية مقعية ماموس علي وحصل ما حباشا مركا تكتعيدي كو يدين ميسو وردوني محاد كتب حول الشري حاد ضد يعرور كتب حاد مقعية ماموس كتب وحلقوا ويديني يا أسئلة maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiyay alastu birabbikum ba maalinta ilaahay ku yiri halkan marka tagtana faman rabbuk ba lagu weydiinaya huwiyada identity duni cusub baa timi tii hore waad ka timi identity kaarkaaga laga rabaa inaad diibato identity-gaaga waa saddexdan su'aalood waxaad kaga jawaabto man rabbuk wama nabiyuk wama diinuk ayaa huwiya ku ah kaasba ku ah ID-gaaga rasmiga jawaabtaad ka bixiso aybaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa صدرت با إلهي وحلي سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وحق ليستي ليباني من زكاها نفتا قفك طاهرة قفك النظيفية يعني ما هكا نظيفية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللي الرسول كسعيد راعضة هي قوليستي قول وين بان رب إلهي سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إذا القرآن كو عدو فائزين كو شيغا يوردن وأعماش آخرتك كليم القرآن كو وحا فوز عظيم الشيغا يوردن وآخرة تتك قوليستي ميزان كفوز كريلهي وحوين يدي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الأحبة حلنا نلاشنا سيدة بوفهم dadkana inuu nimi waa dad tani uu muuqdo dad soon wax ka dambeeya ma arkaan intooda badan tanaana qiimo u sameynaysa wax walbana tanuu ku miisaamaya yana sidoo kale inuu fikirin inaynu tan wax walba ku miisaano ee wax walba aynu qabanaynaaba ha noqdaan xoo aakhira ka jira xoo ilaahay agtiisa gooya xoo janno ka tara xoo naar ka gooya والنار بيجا فوقيني يا مسيو وانقول عيا هداد حرتين هذا آخرة بدباده أنت الفايز هديس آخرات بدبادي ويدو دوني ده وحك استوعد نقضه خسارة كسبت إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى من حق أي روافة كون حوق وذو خسارنا وينغيره آخر يا دون كده بكوي ربي وهجاجيه إن ربي سبحانه وتعالى ينغيره صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.